Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasha ku xidhan channelka. Sidaad wada ogtihiinba waxaa xilli roobaadkan deerta ku soo noqnoqonaya deegaanada Soomaalida. Xasharaadkan loo yaqaano ayaxa oo fara badanna ku haya deegaanka, gaar ahaana beeraha. Haddaba maanta waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaadyo cajiib ah oo ku saabsan ayaxa, hadday tahay faa'iidooyinkiisa iyo hadday tahay cudurrada dawada u yahayba. Haddaba daawada ku soo dhawow muuqaalka maanta. Ayaxu waa mid ka mid ah xayawaanada waxleyda ah ee aadka u cunta dhirta. Eray cilmiyeedka loo yaqaano xasharaadkan ayaa ah ereyga locust. Haddaba waxaa caalamkan ku nool in ka badan 20 kun oo noocyada ayaxa kala duwan ah, kuwaas oo midba midka kale ka duwan yahay, iyada oo kala duwanaanshahan ay sabab u tahay deegaanada ay ku kala nool yihiin. Xayawaankan loo yaqaano ayaxa ayaa u kala socdaala masaafo dheer, isaga oo waxyeello weyn u geysta dalagga. Ayaxa ayaa leh faa'iidooyin aad u fara badan. Waxaa laga helaa borotiinno, dufan, calcium iyo nafaqooyin kale oo aad u badan. Borotiinnadan ayaxa laga helo ayaa lagu qiyaasaa 62%, iyada oo la ogaaday inuu ka borotiin badan yahay lo'da, halka dufanka laga helo uu gaadhayo 17%. Faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay ayaxu maaha kuwo la soo koobi karo. Waxa uuna daawo u yahay rheumatism-ka, babaasiirta, dhawr xanuunka iyo infekshanka ku dhaca dumarka, isaga oo sidoo kale ka qayb qaata korriimada carruurta. Si guud waxaa looga cunaa ayaxa qaaradda Aasiya, gaar ahaan waddamada Carabta oo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo dalka Yemen. Sidoo kale ayaxa diinteena suuban ayaa banaysay, waxaana u daliila xadiiskii uu Nabigu yidhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee: "Uxilla lakum maytataani wa damaani." Waxaa laydiin xalaaleeyey 2 dhiig iyo 2 meyd. Labada meyd waa kalluunka iyo ayaxa. Sidoo kale waxaa laga wariyey Cabdillaahi ibn Awfa, Ilaahay raaliha ka ahaadee: "Ghazawnaa maca rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam 7 ghazawaatin fakunnaa na'kulu al-jaraad." Rasuulka ayaan la duulnay 7 duulaan, waxaanan ahayn kuwo cuna ayaxa. Haddaba ayaxu inkasta oo uu geysto waxyeello dalagga, haddana waxaad ogaatay inuu xalaal yahay, sidoo kale uu caafimaad leeyahay oo uu daawo u yahay cudurro fara badan. Haddaba ha ku ceebeynin dadka cunaya ee dhinacaaga uun ka cun. Haddaba fadlan sheer garee muuqaalka si looga faa'iidaysto.